shirka baarlamaanada Afrika ayaa ka furay dalkani Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay madax xilal hore u qabtay qaaradani Afrika iyo madax kale ee lagu casuumay madaxdii sida gaarka ah loogu casuumay ee ka soo qayb galay waxa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka dalka Djibouti mudane Maxamed Ali Hamoud iyo madaxweynihii hore dalka Botswana gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dalka Nigeria iyo madax kale waxaana sanadkani looga hadlayay higsiga 2063 waxyaabaha qaaradda ay horumar u gaari karto iyadoo dooda sida gaarka ah looga hadlayay haweenka Afrika waxbarasho la'aanta ku haysata iyo dhibaatooyinka soo gaara xildhibaan Cabdicasiis Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdi Xukun oo u matalaya xildhibaanada Soomaaliya shirkani ayaa iiga waramay waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlayay shirkani iyo waxyaabaha la filayo in ay ka soo baxo isagoo sidoo kale ii sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka dalka Soomaaliya mudane Jawaari lagu casuumay shirkani balse aan ka soo qayb galin الرحمن الرحيم maanta maalin khamiis taariikhdu 6 August 2015 waxa halka ka furmay shir baarlamaanka Afrika lagu qabtay oo ay isugu yimaadeen gudoonada baarlamaanka Afrika oo dhan nasiib wanaag waxa halka ila taagan gudoomiyihii baarlamaanka dalka walaalkeena dalka walaalaheen Djibouti oo kamid ah speakerada maanta halka yimid ama maarta gudoonada baarlamaanka halka yimid kamid ah maadaama gudoonkeenni baarlamaanka Soomaaliya uu howlo kale oo shaqo ku maqan yahay annaga xildhibaanadeena Soomaalida farxad weyn bay noo tahay inaan shirka asaga kala qayb galno maxaa la yiraahdaa walaalaheen iyo wadamada kale oo dariska oo aan gobolka iskala nimid qaasatan reer Djibouti ma sha Allah reer Djibouti maanta xildhibaanadooda iyo waa la wada dhamaa sidoo kale qaaradda Afrika oo dhan cid kama maqnayn shirkan wuxuu ahaa shir aad u ballaaran waxyaabo badan oo muhiim ah looga hadlay maxaa la yiraahdaa waxa kamid ah sidii loo dardargelin lahaa baarlamaankan oo Afrika oo asaga sidoo u noqon lahaa hay'adda sharci dejin ee buuxda arinta ayadana horeyna madaxda Afrika uga hadleen haddana maanta aad baa loo dardargeliyay waxa kale oo inta dheer ayadana in gudiyada joogtada ee baarlamaanka iyo gudiyada kale oo caadiga ah ee baarlamaanka Afrika ayaguna sidoo kale ay shirar maxaa la yiraahdaa gudi walba uu gooni u lahaa ayadana maarta la fariistay halkaas oo ayadana maxaa la yiraahdaa arrimo badan oo muhiim ah oo ka mid ahaayeen bay'ada iyo deegaanka iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg ayadana laga hadlay qastaan gudiga aan xubinta ka ahay oo beeraha iyo bay'ada iyo environment-ga dhulka iyo aad baa waxa looga hadlay arrimo Soomaaliya iyo gobolkaba aad u taabanayay waxaan jeclaan lahaa hadalkayga inaan inta ku soo koobo shirkan ayaa shir sanadkiiba 2 jeer ay ku kulmaan xildhibaanada qaaradda Afrika kaasoo ay ka doodaan ama ay ka wada hadlaan waxyaabaha horumari kara qaaradda Afrika Idris Sheikh Ahmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika